Soomaali dadka asxaabta soo ku sugayn maxaa video soo laga sugayo هلا رالي نقوله حتى ضوء حتى حدينا ديقوا رالي نقوله بسم الله مين جدي رالي نقوله بسم الله رالي نقوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دروان كسر دوادا ومركلي برنامج كيني توضح لها وأنيقو محمد صومالي هاتنا وحيد لقى سعطان يوتيوب كيغا ام صومالي official. The base on a million, city face on a trillion. Don't think they know who they dealing with. Ain't the album, it's a pilgrimage. أصحابتي دا لايك سارة سبسكرايب شير وحودن هداد هور أسارنا هذا يوتيوب كوسبتها كسودو halkan waa family qoys weyn nahay maxaa la yiraahdaa maanta waxaan jeclahay in aan ka bixiyo maxaa la yiraahdaa reaction ma dhihi karo la yaab mucjiso wax ah oo ka dhacay yaalkacyo asxaabteeda maxaa la yiraahdaa waxaa jiray gabar yar oo la faraxmeeyay oo haddana la dilay oo waxba loo reebanin la kufsaday gabadhii maxaa la yiraahdaa asxaabteeda suux baa loo galay oo iyadoo meeda yani wax laga sheekeyn kara maaha wax qof muslim mise bini'aadanimo ee ku dambeysana uu sameyn kara xitaa maaha xayawaanka kala baqay inuu si xun ku dilo gabadha wuxuu ku dhacay wallahi waxa uu dhaantay hal mar iyadoo la wada dhameystiro oo dhimasho ku dhacdo maxaa la yiraahdaa bal asxaabteeda waxaan jeclaan lahaa wax yar inaad la daaltaan dhibka halkan ka jira. waxay aad hilib baan u dirsaday hilibka marka ii keentadaan gabadh kale waxay tiri hilib meesha ma yaali haabay tiri waxaa dhi hooyo usoo qaad markay usoo qaaday goorma markaasi ya waa adigoo labadii saac bay adigu ku dhadhayda mana gaadhin xalay miyaa maya waxa weeye shalay haye subaxii weeye dhiigisada waa ka subaxa ah haye gabadha maxaa la yiraahdaa hooyadeed laba saac subaxnimo ee waxay u dirsatay hilib sidaan sheekada aan fahansanahay gabadha hilibkii way keentay markii gabadha hilibka keentay haddana ma qof ay diris yihiin mise naag kale ee maamada saaxiibihiina waxay ku tiri haddii dukaanka weli hilib uu yaalo hilib uu hayo dee hilib iga soo iibi lacagtana markaad meesha tagto ninkii asaay soo waco anaa lacagta u daray waa hooyada hilib u keentay gabadha hooyada u shaqaynaysa maasha allah haddana qof diriskii aad dirsaday gabadhii waxbay u doontay lagaysto gabadhii baa loogu diray waxay tiri gabadhii lacag ma yaqaanin markaas ninka u jabtay oo lacagta markaasaan u shubaya gabadhii baa isoo wacday gabadhii waxay tiri gabadhii ma haye gabadhii miyaada hilibkii igu dirin waxaan idhi waa kuugu diray gabadhii hilibkii miyaada gabadhii arag aniguna waxaa la isleeyahay gabadhii bay ugu tagtayba gabadhii markabay soo wacday waxaan idhi ma haysid miya ma hayay tiri mar saddexaadkii markay saa ila saarasho oo adigu laba saac ayna isleeyahay wax yar baadeen baarinteen istaagay nin meesha hilibka lagu daro way noo dhowdahay jid waxaan jid saas waalid wax ku dirsaday anaga markaan yareen wax inoo daro mar orodaan ku keeni jirnay mar waa iska hilmaami jirnay mar lacagta naga dhumi jirtay marna ciyaara iska aadi jirnaba laga yaabo qofkan waalid waayo isla markii niyadiisa xumaan muusan gelin muusan islahayn yacni waddankaagii dhalkaaga hooyo dhibkan kugu imaanaya bise yacni mucjisadaan wax qabsadan isma lahayn yacni wixii waxaan waxayn baa laga dhigtay gabadhii hooyada meesha ka fiirsay gabadhii meesha ma joogto naagtii hilibka u doontan waxay leedahay gabadha hilib iguma dirmiya gabadhii ma soo socoteen wallaahi billah jidkii baan saa u fiiriyey ninkii baaskiilkiisii iyo waxaan arkay baaskiilkiisii iyo baaskiilkiisa isagoo saarana kustire saa xagga suuqa isu jiray baan arkay waa ninkee waa mid hilib gaba oo kii gabadha hilibkaa nooga diray ninkii waan wacay waxaan war gabadha makuu timid siilay markii hore ay igu timid mooyo mar damba ma arag anigu gabadhi gabadhii nin kale intaysan gaarin baa gala waqaayo waa gartay marka shalay oo dhan baa wareegayna meel baan dhaqay saacadka markuu waagu saa u bariyey bal ka waran haddaa waalid tahay
cunugaaga xaafadda ka maqan misna meenuu jiro aadan ogeyn yani sidee habeenkaas sidee maskaxdaada tahay mise sidee u saaxan lahayd balka war hadda hooyadan walaahi waa maasha allah hooyo sawir badan waa diinta ugu dambeysa way sabarsan tahay weli codkeeda xitaa lagama dareemayo in xoogaa cugdad iyo wax qof ay u qaadayba wali lageyso oo la galay maaragtay saacadii waa laga soo baxay baa dadkii waradayay xagga xaafadda usoo socda waxay dhaheen gabadha caasha ay meydkeeda halkan yeeleen oo yaalkeen bal ka waran gabadhii oo qaaban xitaa maysan wax kusoo qarin gabadhii oo qaaban jawaan iyo bac wax madaxa soo geliyeen ee meesha kusoo tuureen dadka masaajid ka yimaaday aadan hortooda dhig si ay u daawadaan ka waran haddii lagu yimaado ka warban lagu yiraahdo dharkan oo gabadhaadii lagu daboolo meydkeeda horta saas ayaa runta ku dhacday meel aniga adinka dhexe maaragtay mar ay tahay adinka u dambeeyay mar ay tahay xaafadan aanimadu aan deganahay gurigaasaa loo dallaqay gurigii gaaridaa ka soo baxay adigu aagaana socday niyad ahaan uu ku istaagay anu waxaa laga seexane niyad ahaan meeshu ku istaagay baana tiri haddana xusbiyey aniga niyadayda mana seexano waxaana tiri gurigan gaariga xilligaa ka soo baxay salaad laga gelina maxay intaasna wuu jirtaa oo anigu tuunkaasna waan gabadhaan mudee sana jirahay hooyo gabadhaydu 3 jir ah weliba u dhammaanay bilo oga dhigay ka waran gabadh 13 jir ah oo weliba bila ay u dhiman yihiin waa adigu iska dhigay 12 jir wey gabadh 12 jir ah walaal markaad wax ka damcaysay wallaahi damac ma ahayn taas waxay ahayd maxaa la yiraahdaa ku-xumeys oo aad dadkii maxaa la yiraahdaa magaalada ku xumeynayso islaamnimo ku xumeynayso oo waxay ahayd maxaa la yiraahdaa dadka diriskaagana ku xumeynayso maamada shakiya galay cid u dhaweed baa albaab la furay gaari waa soo baxay salaad subax lama gaarin waxay tiri maxaa waqtigan salaadib lama gaarin gaariga xaafadda ka soo baxay waa maxay bal maamada tuhun meesha uu ka galay laayay meesha iyo xaafadda ay wax ka dhacayna waa halkee gaalka cadeeka xagge wey gaalkaayo waxaa weeye xelada kala siinay inay la gudbiyey inaan xagga bariga ka nahay oo xagga jidka aeroboortka ka saaran oo xagga bariga gabadha meydkeeda haddaad aragteen sidee wax u qabtay oo xaggee wax laga gaarsiiyey gabadha anugu horta marka saa loo soo dhigay maaragtay markii la geeyey markeedii laakiin gabadha waxaa la madaxaa laga dilay ujiga waa laga daadiyey meel walba oo ka arka sare ah eber bay ka ahayd midda kale way isu gooyeen oo gabadha dad badan baa isu dhowmaray niman badan baa isu dhowmaray kursina way ku sameeyeen waxaa ka waran wallaahi waxaas waa wax damiirka islaamnimo ku barbaray wey wallaahi bilaahi dhulgariir adduunka doon baa ka dhici kara halkaa ugu gabadh yar halkaa niman oo rag ah oo xaaraan haddana ay ugu tegeen oo maxaa la yidhahdaa gabadhii xoog ay kufsadeen walba way kufsadeen gabadh ma iska dayaan maxay u dilayaan waxay u dilayaan inay sheegin waxayna u badan tahay dadkan dad la yaqaano inay tahay walaal bal ilowad waa gartay marka waxaan weydiinayaa hadda ka hor ma jirta cid iyo aad isleedahay colaad kala dhexaysa ma jirta maya anigu weliga xaafadda cid kalama tagin ayuu sidoo kale waa qadar unbadi oo maya ma jirto wax aana oo gabadhada oo xagga dagaalkii oo derisnimada ma jirto waayahay hooyo dowladda iyo haddaad la xiriirteen oo gabadhii meydkeedii hadda la helay marka maxaa dowladda wareejisay wax baaritaana ma socdaan midda wiil baaritaan baa socday wiilbaa kula soo hadla iyo wiilkaa la hadal buu yiri baaritaan waanu wadnaa saasuu yiri laakiin aniga xawanbixida kaama siin karo caruur intee kuu joogtay ya caruuraad intee kuu joogtay caruur waxaa 7 hadda jooga
والله مامada ilaahay sabr iimaan hasi horta ما شاء الله والله maamo sabr badan wey bal ka waran saxay wallahi billah waxaas waxa weeye inaan wax dameerkii kulumay wey bal aynu aragno dowladii madaxweynihii wuxuu ka yiri bal waxay dhageyso maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isaguna si kulul kaga hadlay ayaa sheegay in laamaha ammaanku ay baaritaan wadaan isla markaana cadaaladda la horgeeni doono dadka sidaas sameynaya iyadoo horumarkaas uu socdo dadaalkaas uu socdo dalkii horumarkaas uu socdo haddana waxaa soo badanaya dhaqamo iyo caadaad aad u xunxun oo aad moodid inay dib noogu celinayaan wixii aan ka soo gudubnay haddana waxaa socda dhaqamo aad iyo aad u xun oo runtii naxdin leh oo bini'aadanimada iyo ilbaxnimada iyo diintaba ku xun waxaad ogtihiin habeenkii xalay ahaa waxaa lagu kufsaday gabadh yar oo 12 jir 13 jir ah magaalada Gaalkacyo oo si xun loo farxumeeyay haddana la dilay oo haddana intii la soo qaaday gurigooda la hordhigay waxaa sameynaya waa dhalinyaro waxaan rajaynayaa dowladdu inay tallaabo adag ka qaadi doonto cid kasta oo ku xadgudubta karaamada bini'aadanka iyo nolosha gabdhuhu waxaa loo baahan yahay waa hooyadeen waa walaasheen waa xaasaskeenni waa mustaqbalkeenni ku taageersanaa wallahi sax buu sheegay hadal jiro sheegay gabdhuhu waa walaasheen waa xaasaskeen waa walaalaheen waa hooyadeen waa waalidkii waa adduunkii farci adduunku farcmi lahaa wey haddaysan maanta hooyo jir lahayn maadan noolaan lahayn soo moogtaa dadka runtii karaamadeenna ay ku jirto waxay u baahan tahay la dhowro waxaa la rabaa dhalinyarada faraha badan ee waayadan daba caadaysatay waxyaabaha maandooriyaha oo ay dhici karto in ay wax walba ay ku kallifto inay sameeyaan dhaqan xumada faraha badan ee soo kordhaysa nabadgelyada u daran صح ولا maandooriyahan iyo hadda magaaladii waa qaadkiiba waa la joojiyaysanay qofku waad aragtay dadka qaadka cuna xitaa lama aamin waa ogtahay wixii oo dhan bal ka waran waa magaaladii dhan oo hayaacda noqotay oo eber noqotay way wallahi waxaa seet wax hala yaabo way wallahi billahi haddii runta la isku sheego caasho Ilyas aadan wixii ku dhacay walaal wallahi wax laga damqado way iyadoo saas ay jirta oo hadda caasho maxaa la yiraahdaa hadda aynu noqotay hadda qof yani adduunka waa joogin oo yani dhanka ilaahay xagga naga aaday kastoo aan anaga saad u jecleen haddana waxaa jira gabar kaloo maqan halka hore iyadana waa 13 jir wey gabar 13 jir kala maqan halka hore walaal waxaa la yiraahdaa Hani Maxamed Warsame hadda dowladda baaritaanka wado waxa uu fiican nolosha Hani inay soo badbaadiso haddii noloshaay intaasaan ku darsanahay maxaa la yiraahdaa waana ahaan iyo maskaxiyan ahaan haddii nahay dad walaala ah marka waxaan jeclaan lahay asxaabtayda walaal isku day gabar walaasha inaad farxayso walaal ilaahay gacan buu ku siiyey soo mood isku day walaalahaas wallahi wax lagu yeeqsado way wax diiniina u fiicnaan dhaqaniina u fiicnaan wax dhan waliba u fiicnaan way wargaalada anaga naga xumaala waxaas ma samayso waxa adeeg ku kalifay aan waxaan jeclaan lahay walaalahayga ma dhahayo qof walba wiilal iyo gabdho wax dadka dhan waxay yihiin ma dhahayo rag oo dhan waxay yihiin ma dhahayo qayl waxa dartiisa walaal muhiim balse yani dadka xun iska ilaali waa inaad saaxiib la noqoto sana in maxaa la yiraahdaa aad waaniso isku day oo aad wixii xumay aad ka badbaadiso waan insha Allah dhamaantiin haatana waa anigu aan Soomaali asxaabteeda u soo dhawaada haddaad hilmaantay inaad subscribe saarto salaam like share amaan insha Allah asxaabtada kale la share galay hala socoto insha Allah YouTube ku xirno hadda kadib insha Allah waa waxyaabo mucjiso ah waxyaabo dadka yaab geliya qosol shactiro film waxa baa soo soo doona haddana insha Allah waa riwaayado 3 riwaayad ka masuul soo socda mar dhow halkaan ka daawan doontaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.